dadka reer Sweden ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta doorashada guud ee dalkaasi. Ololaha doorashada dalkaasi ayaa waxaa hareeyay muran ku saabsan soo galootiga ku qulqulaya qaaradda Yurub. Hogaamiyaha xisbiga ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah ee Sweden Democrats, Jimmie Åkesson, ayaa muujiyay sida uu ugu kalsoon yahay in xisbigiisu ay guul ka soo hoyin doonaan doorashada guud ee maanta ka dhacaysa dalka Sweden. Xisbiga Sweden Democrats ayaa haysta fursadda kaliya ah ee ay ku geli karaan kaalinta labaad ee xisbiga xubnaha ugu badan baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Stefan Löfven ayaa ka digay khatarta ka iman karta taageerida dadka xagjirka ah. Sweden ayaa ka mid ah dalalka sanadihii ugu dambeeyay ay galeen dad badan oo soo galooti ah. Dadkan qaxoontiga ayaa waxay badiba ka soo yaaceen dagaalo iyo macaluul waxaana ay ka yimaadeen Afghanistan, Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida ayaa doorashada ka qaadanaysa qayb libaax, iyadoo 3 musharax oo 2 ka mid ah ay ka tirsan yihiin xisbiga talada ah ee Social Democrats ay ka sharaxan yihiin waddankaasi.